Pastor Joy Isa waa haweeney Kristaana oo ka soo jeeda dalka Nigeria. Waxa loo aqoonsan yahay sheekad ama wadaadka Masiixiyiinta. Waa haweeneyda darteed xabsiga loogu dhaadhiciyay wariye Cabdimalik Muuse Coldoon oo ah saxafi lagu bartay u gurmashada dadka danyarta iyo kuwa waayuhu ay ciileen. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay inaan lagu kalsoomin haweeneydan oo laga feejignaado. waxa uu ku eedeeyay inay magaalada Hargeysa ku faafiso diinta Kristaanka, taasoo keentay in saacado kadib ciidamada booliisku ay xabsiga u taxaabaan. waxay maamulo ka tahay dugsiga Abaarso iyo jaamacadda gabdhaha ee Barwaaqo oo ku taal deegaanka Balliga Cas oo jihada waqooyi ka xigta magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland. waxa ay sheegtay inay bixiyaan waxbarasho heer sare ah oo lagu tayinayo aqoonta haweenka. waxa aan aaminsanahay in la xoojiyo haweenka Soomaaliyeed si ay u noqdaan xirfadlayaal horseeda horumarka bulshada oo dhan, ayaa lagu yiri website-kooda. muuqaalo lagu kaydiyay barta internetka ee YouTube ayaa laga dhuuxi karaa in macallimada Pastor Joy Isa ay faahfaahinayso waxa ay tahay diinta Kristaanku, habdhaqanka Masiixiyiinta, iyo sida ay ula falgeli karaan dadka aaminsan diimaha kale. duruusta wajigooda koobaad waxaan diiradda ku saarayaa dugsi waxbarasho oo haweenka Soomaaliyeed ka dhigi doona hogaamiyayaal la hubo, kuwaasoo markaasi kadib u sii gudbinaya inay jiilka soo socda ee dhalinyarada Soomaaliyeed baraan dalka oo dhan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay jaamacadda. ilaa iyo hadda ma jiraan cadeymo muuqda oo banaanka soo dhigay in jaamacadda Barwaaqo lagu faafiyo diimo wax u dhimaya Islaamka. waxaase jira walaac ay qabaan taariikhyahanada iyo wariyaasha waxbaara oo soo ogaaday in shakhsiyaad faafiya diinta Kristaanku ay macallimiin ka yihiin dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo oo ku yaal magaalada Hargeysa. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo toddobaadkan ka qayb galay munaasabadda qalinjebinta dufcadda koobaad ee jaamacadda Barwaaqo oo haweenka u gaara, waxa uu beeniyay in diinta Kristaanka lagu barto dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo. waxaana uu yiri, Somaliland haddaynu nahay waxaynu u baahannahay in mushaakilka ina haysta qaarkood la isla fahmo. waxa had iyo jeer lagu murmaa iskuulka Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo. dad badan oo aan fahansanayn ama jibadooda darsin waxa ka socda ama cadow u ah Islaamka ayaa waxa ay fidiyaan warar aanay hubin waxa ay yihiin. taasi waxay ugu kaliftay inaan tago dugsiga Abaarso oo shaqaynaya anigoo keligay ah oo aan cidina ila socon oo gaari yar wata si aan u ogaado waxa ka socda. waxaana soo taabtay in iskuulkaas ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay, Islaamkuna uu u baahan yahay. Asiya Faarax Cumar oo ah xaaska samafale Cabdimalik Muuse Coldoon ayaa barteeda Facebook waxa ay ku sheegtay in ninkeeda oo dhaawaca loo dhaadhiciyay xabsigii horey loogu hayn jiray oo ku yaala magaalada Hargeysa. Somaliland ayaa sanad iyo 2 bilood xabsi ku haysay Cabdimalik Muuse Coldoon, waxaana lagu eedeeyay inuu faafiyay in dugsiga Abaarso ardayda ku jira la baro sida ay isugu galmoodaan dadka aan isku jinsiga ahayn iyo in dugsigaasi lagu barto diin aan ahayn Islaamka, taasoo keentay in maxkamaddu ay ku rido xukun 3 sano iyo bar ah.